shabeelku waa xayawaan duurjoog ah oo caan ku ah xooggiisa, xawligiisa iyo sida uu si qarsoodi ah ugu ugaarsado xayawaanka kale. waa mid kale noole ah inta badan kaligiisa socda, isla markaana aad u adag. wuxuu ku nool yahay dhulal kala duwan sida kaymaha cufan, buuraha, dhul doog leh iyo meelaha geedaha leh ee kulaylaha ah. shabeelku aad buu u garanayaa sida uu uga dhex dhuunto deegaanka, isagoo aan cod dheer ku dhihin balse si tartiib ah uga agdhowaado ugaarsigiisa. inkasta oo uu ugaarsi yaqaan sax ah, haddana shabeelka waxa uu ka mid yahay xayawaanada halista uga jira dabargo'a. tiro ahaan aad bay u yar tahay, waxaana sabab u ah deegaanka oo laga rarayo ugaarsiga sharci darrada ah iyo dadweyne oo si tartiib ah uga fidaya dhulkii uu ku noolaa. shabeelka waxaa lagu gartaa jir weyn oo muruq leh, midab orange ah oo ay ku yaaliin dhagaxaan madow. quruxda muuqaalkiisa waa mid soo jiidasho leh, indhihiisa waa weyn yihiin, wax arkana xilliyada mugdiga ah, taasi oo ka dhigaysa ugaarsi yaqaan habeenle ah. dhaqamada qaar, shabeelka waxaa lagu tixgeliyaa astaan u taagan geesnimo, xariifnimo iyo xorriyad. inkasta oo aan si sahlan lagu arkin, haddana haddii aad duurka ku aragto waa nasiib. shabeelku ma aha oo keliya xayawaan, waa geesi aamusan oo qarsoodi ugu taliya duurka. haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan ha naga ilaawin inaad channelka subscribe saarto, like saar, asxaabtaadana la wadaag. wixii fikir ahna kommentiga inoogu reeb. waad mahadsan tahay.